warwaadigan kashkashlaynee kelmadaad mar tiraahdo midii kaabil ahayd kolna aan odhanayni ma kaftankii kalamaane kulmiyaad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix aga eega maanaga isku maana maxaad kayga ku diidi now dee dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay kurodaanan kolkooda hooy kurbadii ahayda sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn hadduu kaagu shaar yahay ma kayga niqatala dadku waa kalamaan kulmiyaana midaysay how maxaa tiiriya may erti midii midaysay maahino aryaadhaha heer kalamaanow anigu waydin la taliha waxbardha'aan barwaaqa gaarne warniyo maanta carab waad iska beddeshaa umalayna carab loodaad ku haysti war carab lo'aad waa qaaliyoobay carabka loodu umulugow u roolin yahaye maxay nagu qaaliyeeyeen war macayniganaad waxbarasho ku gaadhay miya nin walooba allaha sug maanta war yaab leh ayaa idinka yimid oday 80 jir ah ayaaba la waxbadha isla 80 jirina waxay leedahay umulooba hayo carabkii looda lagu qaaligareeyay waaba arrin cajiib ah war wax kasta oo la sheegay qoodhi wuxuu u maleeyaa in ictiraafkii laga hor istaagay war naag Chinese oo qudaar ku gada Somaliland ayaaba na ictiraaftay maada warbahaya aryaadhaha warka hayga dhex gelinay waxbardhan idin iriyay dhagansada Somaliland waxaa la sheegay arday 400 ka badan oo deeq waxbarasho Itoobiya ka helay inay jaamacada u aadeen Puntlandna intaasoo kale la sheegay inay jaamacada u aadeen muga waxaan la yaabanahay Itoobiya deeqda waxbarasho ma lamadaas laan kale yahay siisay mase inta kalena waa siisay waa qarsahayaan warwar ma ogidi wasiirka waxbarashada baarlamaanka wuxuu ka jeediyay ma ahayn deeq waxbarasho waxay ahaayeen hidaha hidaha qarsoon Soomaalida waa ku wareereen laakiin aniga markaan xuraansi carrada u galay waxa la yiri NGO UNESCO wadata way marka waxaan la yaabanahay wax baarlamaanka hawl u yaala iyo NGO-ga golaha ka hor arganayo aryaa wax la qarsho ama waa qurmaan ama waa qubtaane shib naga dhig Cabdullaah mahmaayada ku dheelin xalaal barqa la qashaweeye war mahmaahadan ka dheelena saar walaha miin leelki luntumaa lugaan la banga leere war mahmaayada ku dheelin ciyaar haddaan wax ku jirin maxaa habeenkii loo tumaabay ahayd war mahmaayada ku dheeline soo joog ninka laga waayo soo jiif baa laga helaa arqowdhalow saas maahina afkay ku cuntay ku heybay waaye war Cabdullaah adna ku dheelin baasha wax taga tiigsimaad ma la weeye war mahmaayada ma taqaanina ku dheelina islaan dhali weyday aleela ku waalataya la yiri war saas ma ahayne waxa la yiri reerba ay beena biisay ar sidaas ma ahina heerba oo yaa kule waaye war saas meedad koona baruura jibiyo dad koona baahi dhamaayo haytu war mahmaayada ku dheelina saas ma ahane reer rag leh roobsaan ma u galaabay ahayd war rag waxay ku mahmaahan dumar beena lagu soo xarigeliya runtuna waa lagu dhaqaa war gabdho hadda waa bedeleen mahmaayadaas rag meeg abba lagu soo xarigeliya bay yiraahdeen midabkaagana waa lagu dhaqaa aryaadaha sidaas oo dhanba maahina waxa waaye ninna shaahow shuba waayay ninna shaarka ku yaraaday waaye war saas ma Cabdulle shabshablow shiinka quraanka ninki sheega ma shalaayo waay Cabdulle wareerda Somaliland iyo Puntland deeqdii waxbarasho heleen waa cadeen ardadiina waa dirayaan inteena kale ma beecbay noota ma gadanayna wararta waxa la yiri dawladda waa hooyo musuqna waxa uu daran baa la yiri hooyada lagu aamini waay caanaha ilmaheeda warba musaasada ka cabta caanaha ilmahooda rag baba jaad quuna walaa waxa hore loo yiri oo maray soo riis nuugtaayo wixii laga raabay rabta maray riis nuugtaayo wixii laga raabay rabta yaahu war mahmaayadu sidaas maaha nin bukan nin baahan barax looguma dhiibaalay aryaa mahmaayada hayga dhex gelina shibiga dheh waxa kale hore loo yiri oo rinoolu ridhimatayay karoonto reejay qabta rinoolu ridhimatayay karoonto reejay qabta allah naxariiste Abdullaah warka eediyada angoradii Puntland iyo Somaliland rajiga bangu
war maxaad beenta u sheegaysaan kuwaas annagaaba nabad iyo nolol haysanoo kale jafiican nabad hee horaa midaysaa ugu biiree war ma haysiine Kenya iyo Soomaaliya waa heshiiyeen la yiri baddi yaa la sii baddi maxaa ku bedelanay 4 sano soo socota ama la isku dhakan yahay xal lagu heshiiyahe war xanuun idin hayaa idin ka soo burqaday warka naga dhageysta labada dawladood waxay ku heshiiyeen inaan dacwada baddu ganacsiga iyo bini'aadanimada saamayn muga ma Kenya loogu danayha iyadaha qaad ku baaraahe war annagaba lacag nagu baaraysa warnimada war ma haysaane waxaan ogaaday sababta baarlamaanku iyo mooshin uga keeni waayay baarlamaanka waxaa la sheegay inuu siyaasado badan kala xiran yahay marka mooshin Kenya hadii laga keeno qola Itoobiya ka keenaysa leeyay Itoobiya hadii laga keeno qola Qatar ka keenaysa leeyay Qatar hadii laga keeno qola Imaaraat ka keenaysa leeyay Imaaraat hadii laga keeno qola Turkiga ka keenaysa leeyay Turkiga hadii laga keeno qola Eritrea ka keenaysa leeyay marka moshinku waa soconayaa baa leeyay mar haduu bilowdo ilaa Vietnam laga keeno Vietnam mar hadii laga keenana farmaajo ku xiga marka waa in la joojiyaa hadda marka hadda korba Mustafa Shacilmi wuxuu yiri ismoog Soomaaliyeey mas'uuliyaan u dooranaa oo aan meel laga lahayn war wuxuu raaciyay oo hay way war maalintii lantarta maay ra'iisul baarlamaanka jawaari may baaray ana iswada malan iwada male waana aadi lan wadana gabalku ma ka shaqeeyo war baarlamaanka mustaqbalka dalka aan ka sugayna ma dalala iskale war waxa la yiri inuu cadawiyama islugu rito dulna kala yeeshay qorshe Yurub ka yimid iyo inay Yuurana hagayso inuu sixir reeyag noo rogo Yuruntidii joogto halka looga yimid yaa yaqaan yaa bal loo dhimay war ma haysan war riyoonay naga dhageysta riyana xayta meeqa riyahayga anigoo birayhaya ku riyoohaya wariyadaan waa riyo siyaasiyana dhageyso riyada siyaasiga haba idibtay aniga habeen kasta anigoo madaxweynaha ku riyoodaa subaxdina waxba mi war waxaad noo sheegaysaa waa maxay xagee riyaha siyaasiga ay daaqaan war maya wuxuu wadaa kalaamul layl ma yamshi nahaar war dad maranaatiina warka naga dhageysta madaxweynaha Soomaaliya ruushow aadaya hadda runku suga waa ku riyoonay riya ku qaab daranida saad isu waafajisay madaxweynihii shalay Mareykanka ka yimid ra'iisul wasaarihiisina ku maqan yahay foogta ruush aadaya yaad u sheegay kuwaas war ruushkii hore iyo Mareykankii hore maahan waa wada daaqaan oo waa saaxiib hadda Trump iyo Putin hadday wada daaqaan iyo hadday dagaalaan anaga waxba nagama quseeyaan ruush waagu Itoobiya nooga hilsho waa naga xiriirka u jarnay goorma la soo elshoorta war macdaa war haya Abiy Ahmed miyaan Itoobiya dhan bedelin oo farmaajo la saaxiibin war dawla waraaqu ku yaale Itoobiya lafteeda goormaan heshiin war dawaya warkii dawla waraaqada ku qornay mar hore ilaha ka tabay Facebook ana hanis dhiko haay war ha ku daalinin hogalka galmudug waxba kama dhaadhicin kartaan adduunka lama socdee horta anigu galmudugaan la yaabay waxaan maqlayaa ahlu sunno dhahaysa la kulmi ma inoo wasiirka arrimaha gudaha mugama maran yihiin madaxweynaha ku meel gaarka ee galmudug inuu yahay ma oga miya abdulow may bahil maantay falkireer galmudug aadiyo hayti wallahi aan la yeelin oo billahi la yeelin la yeeli doonin ma anaga inta wax nala soo dhoobdhooba halkan lagu soo xukuumaya asan la fariisanayna wallahi aan la yeelin mana yeeli doona war galmudug war kama haysaane aeroboortka Dhuusamaree waa la xirtay kaarakiyaalo are awalka gadiyay war hadda ma aqaan muxuu yiri ninku war ciidanka la geeyo waa meeqo ku yiri dhagxaya ciidsa meeqa lagu gooyay ku yiri war ciidanka adduunka ugu fiicnaaba xirtay warka naga dhageysta warniya u sheeg shaakir ahiriday u sii arin jiray ciidankan halkanaga ku hayno ciidan adduunyo ma ciidan aakhira weeye cuntoyna ma habtoyna ma waa ciidan aakhira ogaada war ciidan cirka ka soo daatay weeyana maqla haddaan gartay cirkaba hadday ka soo daateen waa danab war codada qabtaan baa ka hadlaysaane roob baa ku daaya xareed baa dhex taala sidaa darteed wuxuu u xiran yahay xareed calooshu ku wareegtay maanta oran maana tiraadi roob baa ku daaya markaad ciidanka wax nagala daba wareegayso iyo minay wax tarayaan fagaxba waa xirteen xad naga wareerihaysa war biyoob wal halaayaan masaajidka reer hortiisna had dhooban yimay wari aan laga tagbiyaaday wax tarayaan isbartidada horteeda wadada aadaa looga go'ay maan dheeskow biyaha daad rabtiin wasaaradda boostada dhinaceeda yaali war adeer meeshaas miyana dawlad hoose joogin war maysiina Puntland waxay amartay in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya aysan xafiiska furi karin deegaanada maamulkaas wasiir Jamaal Shali xafiis furtay ayaana amarkaas ku soo baxay war been badnida xildhibaanad baa hadda ka hadlaysay goormad wasiirkana u gudubtay war yaa warani gaashan miyaadan aqoon warada halku dhageeda nabad iyo nolol waxa kamid ah waa dhex galnay waa isticmaalnay buudkan kula tumanay marka Puntland in la dhex galay ka baqday war meesha doonta hubka sida ay ka degtay
sheegtay waa hob iyo beentaan iska daa warwar ma haysiine ciyaalkii facebook dhibaatay qabaan ma ku jiqan tahay adeegay ku tahay warkayga maqal xildhibaanada loo xil saaray hadda ka hor inay caayaan haddana xildhibaanadii u baahdeen taleefankana waa ka qaban laayihiin oo waa lagu adkeeyey markii hore la isticmaalano markii hore faaqda badiyeenno waa ku daadsantahay amal maa kalaamaysinno nooh badan idiinaan nooh kalamaan markay ciyaalsiyadu ku soo biirtaan nacaanno war carruurta ciyaalsiyada noohay ku waasheene waa nooho loo gado warradoo nagala tag sheekada noohadu way qaraxdaa baa la yidhi hadda ka horaa ciyaalsiya shirbay nooh wuxuu yidhi nooh haddaysaanaagu nooh leehayn anna ninkeeri mihii nooh war wasiirka caafimaadka ee somalilan wuxuu sheegay 3 qof ee soomaaliyaba inuu nin waala yahay markaa noocii baa tiin adeer war wasiirku somalilan kuu sheegay dadka ictiraafka raba war naga taga waxaa la yidhi 3 qofood oo nabadii nolol taageertaba labaa mushaar qaadata anigu nabad iyo nolol waa taageera mushaarna ma qaato waagi horena xisbiga hanti wadaagay ka mid ahayd haddana xoogaga wadaniyiinta ahaa lagu diray hala yaabina duqda warwar ma haysaana buluburdi jallaqsi inta u dhaxaysa shabaabaa sidii dadkii u geli jireen loo galay ma loo nasteexeeyey war waa lagu nabayna dhegayso caasiyaal iyagoo ku raran aajidka loo galay hadda si ay yeeli jireen la yeeli ninkii jidgala jida loo gala war maahan saas jirkaagay ka go'an tahay waxaad jiidataa bari weeye war sidaas maahane rag waxaa lagu bartaa jid jidiin waaye aryaadhaha sidaas maahina beer waxaad ku abuurataad ka gurataa war saas maahan nintiin abuurta timir uma baxda weeye war xaaja nin la toosanin inay tuur la leedahay weeye artimirta siibatiin tallaal waa talada soomaalisay u taal ee tiin 3 maalmood buu ku baxayaa timirna 30 sana la sugayaa ma walba isku mid ahaayeen waradeena ummadii tashan weyda waa loo taliyaa hankoolka galmudug warkiisa waxaan ku ogaaday inuu yahay raggii galcambaha sirraha ka samayn jiray meel kale ha ka raadin war waxaan u malaynayaa raggii qandalada bilaqada lagu galo inta furtay ibnu cabbaas iyo ibnu cumar ula baxay inuu ka mid ahaa adugu waxaad iileeg tahay ninkii gaariga uu soo dhacay tabeetigiisa safaru salaama ku qortay war reer koonfur hoob aan isiin baranay basno era kii geela inya soo dhacaaniisa inya ka dhargo meel seexda allow nabad noo naadi dhahayo kale waaye war yaa aniga ima dhihi karti warkaas ayaa geed yaa ka soo dhacday iga tagniyo aniguna waxa ku dhiibay wallahi waa soo miidha baa jira war yaa dawladnimadii la dhacay geel maxaa ka sheegay wadaha wallahi war baas saydin nabe horta indha geelle indunuusiyaan miya